bismillaahi raxmaanir raxiim kulan wacan daawadayaal halkan waa caasimada TV qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta oo bahdilay dawladda Soomaaliya kadib markii uu raaligelin siiyay Imaaraadka Carabta una celiyay lacag lagala wareegay sanado ka hor sidoo kale gargaar raashin ah ayay dawladda federaalka maanta la wareegtay midowga murashaxiinta mucaaradka oo war ka soo saaray tallaabadii bahdilka ee uu maanta qaaday Rooble sidoo kale qodobada wararkeena waxa kamid ah Amisom oo la qorsheenayo in lagu wareejiyo ammaanka guud ee madaxtooyada xilli Rooble uu cabsi weyn ka qabo amnigiisa iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta oo qarka u saaran inuu wareejiyo mas'uuliyadda doorashada qirtana in uu ku guuldareystay qabashada doorasho ka dhacda Soomaaliya kulamo gaargaar ah oo caawa ka socda Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay kulankii fashilmay ee golaha wadatashiga qaran ayaad warkeena ku daawan doontaan qodobadaasi oo dhan ayaan ku faahfaahin doonaa wararkeena haddaad nagu cusub tahay subscribe saar YouTube-kana kadibna furo gambaleelka haddaad aragtidaada qaybta hoose ee commentiga noogu reebto waan kaaga mahadcelinayaa u diyaar garoow faahfaahinta qodobadaasi markale kulanti wanaagsan goordhow waxaan eegi doonaa xaaladda cakiran ee Soomaaliya iyo shirkii golaha wadatashiga qaran ee fashilmay kulamo gooni ah oo caawa ka socda Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda doorashada Soomaaliya ayaan eegi doonaa asa ahaatee waxaan ka hormarinayaa ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta qaaday tallaabo bahdil ku ah dawladda federaalka Soomaaliya kadib markii uu dawladda Imaaraadka Carabta ka raaligeliyay dhacdadii bishii Abriil sanadkii 2018 ay dawladda Soomaaliya ugala wareegtay lacag laga soo dejiyay garoonka aadan cadde Rooble ayaa hadalkan lama filaanka ah maanta ka sheegay magaalada Muqdisho xilli uu dawladda Imaaraadka Carabta ka gudoomay deeq gargaar ah oo ay ugu talagashay caawinta dadka abaartu ay saameysay deeqda ayaa waxa Rooble ku wareejiyay safiirka Imaaraadka Carabta ee magaalada Muqdisho Maxamed Al Usmani Rooble ayaa balan qaaday in lacagtaasi oo ku jirta gacanta dawladda lagu wareejin doono Imaaraadka Carabta waqtiga ugu dhow Rooble oo dawladda Imaaraadka uga mahadceliyay garab istaageeda shacabka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay ka go'an tahay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee labada dal ee walaalaha ah bishii Abriil sanadkii 2018 dawladda federaalka Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigtay lacag dhan 9.6 milyan oo dollar oo garoonka Muqdisho uga soo degtay safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho taasi oo horseeday in Imaaraadka ay joojiyaan tababarkii ay siin jireen ciidamada Soomaaliya xiriirka labada dalna uu gaaro meeshii ugu xumayd dawladda federaalka ayaa xilligaasi sheegtay in lacagtaasi loogu talagalay in arbushaad siyaasadeed looga sameeyo dalka balse Imaaraadka ayaa ku dooday inay ugu talagaleen mushaarka militariga Soomaaliya oo qayb kamid ah ay xilligaasi tababari jireen sidoo kale xilligaasi waxay dawladda federaalka ku eedeysay Imaaraadka inay lacago lagu qalqalgelinayo amniga Soomaaliya ay siin jirtay mucaaradka Soomaaliya Rooble ayaa tan iyo markii uu xafiiska yimid laba goor la kulmay safiirka Imaaraadka ee Muqdisho waxaana muuqatay inuu isku dayayo inuu hagaajiyo xiriirka Abu Dhabi oo muhiim u ah ganacsiga Soomaalida waxaana la fahamsan yahay in tallaabooyinkan gurcan ee uu qaadayo Rooble ay salka ku hayso amaba ay daba socoto khilaafka la dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo dadka siyaasadda falanqeeya ay ku macneynayaan tallaabooyinkan mid Rooble uu qaadayo isaga oo xanaaqsan midowga murashaxiinta mucaaradka oo war ka soo saaray tallaabadii uu maanta qaaday Rooble ayaan eegi doonaa hase ahaatee aan ka hormariyo xaaladda cakiran ee dalka iyadoo shirka golaha wadatashiga qaran ee looga hadlayo arrimaha doorashada uu hakad ku jiro kadib markii madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ay isku fahmi waayeen qodobo dhowr ah oo uu ugu horeeyo amniga dalka Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta waxa uu ku doodayaa in lagu wareejiyo amniga dalka iyadoo madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay ka soo horjeedaan in Rooble xilligan lagu wareejiyo amniga dalka maadaama uu khilaaf kala dhaxeeyo madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddaba xaaladihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo shirka golaha wadatashiga qaran oo hakad ku jira warbixintan ayaan idinkaga diyaariyay kadib shir 4 maalmood uga socday magaalada Muqdisho ayaa khamiistii ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa ay ku heshiin waayeen qodobka ku aadan cidda maamulaysa amniga guud ee dalka madaxda ayaa lagu soo waramayaa in dood adag ay ka yeesheen qodobkan oo la xiriira amniga qaranka iyadoo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta iyo dawlad goboleedyada ku aragtida ah
ay doonayaan in maamulka amniga guud ee dalka lagu wareejiyo Maxamed Xuseen Rooble iyo in taliyaasha ciidamada ay ka amar qaataan xukuumadda oo keliya. maamul goboleedyada kale ee diidan qodobkaasi ayaa ku doodaya in arrintan aanay qayb ka ahayn arrimaha quseeya doorashada. haddaba halkan waxaan ku eegi doonaa 5 arrin oo ku aadan qodobkan uu u xayiran yahay shirka muhiimka u ah arrimaha doorashada ee madaxda golaha wadatashiga qaran uga socda Muqdisho. arrinta koowaad, maxaa keenay qodobkan? 27 Diseembar ee sanadkii hore 2021 ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa si toos ah ugu eedeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ku tilmaamay isku day afgembi. Rooble ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu soo weeraray xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada si uu u hor istaago gudashada waajibaadkooda qaran. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo isla maalinta la hadlay warbaahinta ayaa beeniyay inuu dhacay afgembi, waxaana uu tilmaamay in Rooble uu arrinta ku qarinayo shaqo joojinta uu ku sameeyay madaxweyne Farmaajo. wixii maalinta ka dambeeyay waxaa Muqdisho ka socday dhaqdhaqaaq ciidan oo abuuray cabsi ah inay dhacaan dagaalo la mid ah kuwii Abriil 2021 ka dhacay caasimadda. arrinta labaad, kala qaybsanaanta maamul goboleedyada. sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiin ku dhow golaha wadatashiga qaran, ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble oo taageero ka helaya madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa ku doodaya in aanay doorasho daahfuran dhici karin inta uu madaxweyne Farmaajo leeyahay hogaaminta amniga guud ee qaranka. waxaa dhinaca doodaasi diidan madaxweynayaasha Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. dooda garabkan ayaa ah in arrinta amniga guud ee dalka aysan quseyn shirka, isla markaana ra'iisul wasaaraha lagu wareejiyay uuna mas'uul ka yahay amniga doorashada kaliya. qodobkan oo aan weli laga heshiin ayaa lagu tilmaamay inuu yahay kan ugu adag ee uu hadda u xayiran yahay shirka. arrinta saddexaad, dastuurka iyo amniga guud ee dalka. dastuurka ku-meelgaarka ah ee Soomaaliya qodobkiisa 9aad xarafkiisa ba ayaa dhigaya in madaxweynaha uu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, iyadoo farqada xigtana ay sheegayso inuu awood u leeyahay magacaabidda taliyaasha ciidamada heer federaal iyo ka qaadista xilalkooda marka ay soo jeediyaan golaha wasiirada. dadka taageersan madaxweyne Farmaajo ayaa ku doodaya in aysan jirin sabab uu amniga dalka iyo maqaamka ah taliyaha guud ee ciidamada uu ugu wareejiyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta oo haatan uu khilaaf kala dhaxeeyo. dadka taageersan ra'iisul wasaare Rooble ayaa iyagu qaba in madaxweyne Farmaajo uu mudaxileedkiisa dhammaaday, isla markaana uu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha dalka. xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo dowlad goboleedyada ku aragtida ah ayaa ku doodaya in madaxweyne Farmaajo uu awood u leeyahay in ciidamada ka amar qaata uu ku carqaladeeyo doorashada, taasina ay tahay sababta ay u doonayaan in uu wareejiyo amniga guud ee dalka. balse garabka kale ee diidan in amniga dalka lagu wareejiyo Rooble ayaa iyagana ku doodaya in aysan jirin sabab weyn oo qasbaysa in amniga guud ee dalka loo gacan geliyo Rooble oo uu hadda khilaaf kala dhaxeeyo madaxweyne Farmaajo. arrinta afraad, amnigee lala wareegaya. dadka diidan in ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta lagu wareejiyo amniga guud ee dalka ayaa qaba su'aal ku aadan qeexidda amniga ay tahay inuu la wareego. waxa ay tilmaamayaan in ciidamada federaalka ay ka howlgalaan oo keliya 3 magaalo madax oo ka mid ah 5 xarumood ee saldhiga u ah maamul goboleedyada. maamul goboleedyada ay joogaan ciidamada dawladda ayaa daneynaya inay fahmaan halka amarka laga siinayo ciidamada dawladda federaalka iyo sida uu u saameyn karo amnigooda iyo danahooda. doodooda ayaa ku qotonta in ciidamada federaalka aysan awood muuqata ku lahayn magaalooyinka Kismaayo iyo Garowe, sidaa awgeedna uu dhalanteed yahay amniga guud ee la wareejinayo. waxaa kale oo ay tilmaamayaan in hadiiba ay dhacdo in Rooble gacanta loo geliyo amniga guud ee dalka, cidda damaanad qaadaysa in uu ku dhibaateyn doonin maamulada hadda taabacsan madaxweyne Farmaajo ee ay joogaan ciidamadaasi. arrinta shanaad, maxaa xiga. madaxda ayaa lagu wadaa in caawa ama biri oo sabti ah ay isugu soo laabtaan kulanka si ay u sii wadaan qodobkan doodiisa. waxaa jira walaac ah in haddii ay ka heshiin waayaan arrintan uu shirka sida ku burburi karo. labada dhinac ayaa xalay ilaa iyo maanta waday wada tashiyo gooni ah, waxaana sidoo kale jira cadaadis uga imaanaya dalalka lagu magacaabo saaxiibada Soomaaliya. dhinaca kale haddii la isku fahmi waayo qodobkan amniga, waxaa furan aragtiyo kale oo lagu xalin karo doodan adag ee taagan. aragtida furan ayaa ah in ciidanka AMISOM lagu wareejiyo ammaanka guud ee madaxtooyada
oo bannaanka loo soo saaro dhammaan ciidamada Soomaalida ah ee labada nin kala taabacsan si meesha looga saaro cabsida ku saabsan in xabad ay ka dhex bilaabato madaxtooyada qaranka. waajibaadka AMISOM waxaa ka mid ah inay sugaan amniga madaxda dalka iyo xarumaha muhiimka ah. qodob kale ayay ku doodayaan garabka Rooble, taasi oo ah in la bedelo taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odoba Yusuf Raage iyadoo laga heshiinayo cidda lagu bedeli doono. tani ayaa sidoo kale waxaa diidan madaxda maamul goboleedyada qaarkood. haddaba adiga maxay kula tahay in lagu xalin karo dooda ku saabsan amniga dalka? waa hagaag qaybihii ugu dambeeyay ee warkeenna ayaan soo gaarnay. midowga murashaxiinta mucaaradka ayaa si weyn u soo dhaweeyay tallaabadii uu maanta qaaday ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ee qaybta ka ahayd dib u soo celinta xiriirka xumaa ee Imaaraadka Carabta. Rooble ayaa dowladda Imaaraadka ka raaligeliyay dhacdadii bishii Abriil 2018 ay dowladda Soomaaliya ugala wareegtay lacag laga soo dejiyay garoonka Aadan Cadde. golaha ayaa ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ku bogaadiyay dadaalka uu dib ugu hagaajinayo xiriirkii sanadihii dambe la xumeeyay ee Soomaaliya kala dhaxeeyay dowladaha Carabeed ee aan walaalaha nahay oo ay ugu horeyso Imaaraadka Carabta. golaha midowga murashaxiinta wuxuu uga mahadcelinayaa dowladda isu taga Imaaraadka Carabta deeqda ay soo gaarsiisay dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu waxyeeleeyeen ayaa lagu yiri qoraalka. golaha ayaa adkeeyay muhiimadda xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaga oo xusay in sanadkii tagay dalkeenna uu dhexmaray ganacsi ka badan 1.7 bilyan oo dollar. ugu dambeyntii mucaaradka ayaa ku booriyay dowladda Imaaraadka inay dib u soo celiso kabkii miisaaniyadeed ee dalka, adeegii caafimaad iyo fududeyntii dalku galka. waa hagaag daawadayaal, halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen bartan YouTube-ka ee Caasimadda TV. inta ku kulmeena wararkeena dambe waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo.